soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa soomaalidu caqiidadan qabiilka ee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xooga badan intay jirto ee in reer loo gaaloobo gaalkii ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyay waxa imika axmaaro wada reer baa lagu wadaa wax alla idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba adawga koowaad aan arkayo mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhalusaa oo ay bedeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo dhaqan ay weynu bedela hadi waahida kalabaad aan tilmaamayana waxa weeyaan bini aadamku markasta uu hadaf yeesho uu gaari karaa ana ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar misaga qof ba qaada qof han la reer ma qaado reerku waa in yar dhowrkuna qof ma isku reertiin dhowrkuna qof wax madaxnimadooda iyo hogaankooda iyo inta la raadiyo ma xataa dadka hogaanka doonaya waxa inuu hanjiro han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunida inaan wax ka bedel ka fakara geeskii yaraa inaynu sii tunno intaynu ka fakarayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay idan inuu hankeenu weynaado inaynu dunida wax ka bedelayna ka fakarnee tobankan madmadooba geeska jooga uun qaybintooda waxba tarimayso dad hal le aan noqono ثالثا waxaan leeyahay diinteena aan dib ugu noqono oo islaamnimadeena qaadano rabi'an waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan hamidoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan isleeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan uu ku faraxsay hadii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayd reerkan kaluun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu ma ka sii dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan intaynu doonayna shan baa naga dhintay idina 100 baan idinka dilay war 105 Soomaaliya ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan ku koobaya wax weeyaan hadii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkeen ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam